halkan waa masaajidka Mainis waxaa isugu yimid culimada waalidiinta ardayda iyo qeybaha bulshada waxaa laga hadlayaa kulan muhiim u ah masjidka oo la xiriira sidii bulshada Soomaaliyeed looga codsan lahaa inay u gurmadaan oo ay badbaadiyaan dhulka masjidkaasi oo dadkii milkiyada dhulkaas lahaa ay sheegeen inay doonayaan inay laga iibsado ama loogu guuro waayo waxay rabaan in ay dad kale ka iibiyaan haddii dadka Soomaalida hadda gacanta ku haya dhulkaas masjidka u kiraysan ay iibsan waayaan culimada meesha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiwaaxid oo isagoo ah maamulaha masjidka Sheekh Cabdiqani oo ah imaamka masjidka iyo culimada iyo waalidiinta iyo qeybaha bulshada ee ku nool magaalada Mainis iyo sidoo kale shacab Soomaaliyeed ku nool gobolada kale ee dalka Jarmalka oo iyagu yimid munaasabadan lagu shaacinayay in masjidka ay soo wajahday xaalad aad u adag oo ah in la doonayo in dhulkaasi si degdeg ah u iibsadaan haddii kalena gacan ku haynta masjidkaasi ay weyn doonaan arrintaasi xaqiiqatan markii aan maqalnay haddii aan nahay wariyaasha waddanka Jarmalka waan ka howlgalnay taageero buuxda ayaan u muujinay waayo howl sanfal oo howl cibaado وانا runtii meesha ay dadku ku cibaadeysan lahaayeen ee muhiimka ah xaqiiqda taas anagu ka duuleena ayaan u safarnay magaalada Mainis ee dalka Jarmalka markan waxaan toos idinku duwayaa khudbadihii laga jeediyay munaasabadaasi waxa ugu horeyn doona Sheekh Cabdiwaaxid oo ah maamulaha guud ee masjidka Sheekh Cabdiqani ayaa ku sii xigi doona imaamka masjidka kadibna bulshadii halkaas ka hadashay ayaa hadalka qaadan doona ولو كمفحص قطات بنى الله بيتا في الجنة حديث كاس النبي وحط المام هيا يعني يرانت مساجدك وحلو المام يقول شمبرات أما مالي يرى شمبرتو أي دولكو أي حارتين وكنت هذا يكون حيثته نوع دوري بها هذا إنكي مسجد اسمه سكاقي مغاط إن إلهي يقولوا أوغل سيء مساجد كان وحنود سيء مدة تضبصنا adeeg masaajid oo kaliya ma adeeg fara badan bulshada u qabtaa caruurta wax noogu barato ninka musaafirka ah baanu mataqaana ka caawinaa annaga danaha anaga ku qabsano duruufaana keenay hadda xilli xaadirkan inaanu iibsano ninkii lahaa baa war meesha iiga gata ama iiga baxa marka lacagta uu noo soo bandhigana lacag badan ma aha waa wax aada u yar waxaan rabaa marka walaalahay dadka muslimiinta ah خاصة dadka ahalkayga khayrka jecel Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay masaajidkan ay ka qayb qaataan iibkiisa iyadoo ogtihiin masaajid ninka dhisa sida manfaca uu ka helay aakhirana uu ku liibaanaya adduunyada uu ku liibaanaya waxaan codsiiyay mar labaad iyo mar saddexaad oo dirayaa masaajidkan waa masaajid Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed wax tarwiin buu leeyahay baahi weyn oo loo qabaa sandarka magaalada ku yaala meelan train station ama Bahnhofka aan ka fogeyn buu ku yaalaa waxaan codsanayaa labaad iyo mar saddexaad waan awoodnaa walaalayaalow €2 ama $2 ama $5 oo aad ku soo shubto linkiga hoos lagu soo dhigi doono isagoo EVC ah bangiga Islaamka Soomaali banki ah zaadkii waxaan dalka hadda joogtana waxaad ku soo shubi kartaa PayPal buu leeyahay akoonnadii Jarmalka ku qoran wax bixintaada aad baan ugu baahanahay wadna maasan jazakumullahu khayr kulay warad kuma seegano oo culimadii iyo maamulkii iyo dhamaan waa la soo hadlay war hadii uu magaranaysaa uu meel buuxinayna waa la soo yiri laakiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa wixii la yiri kuwii waaleeyay dhagahooda Allah subhanahu wa ta'ala naga dhigo waxaan rabaa kaliya masaajidkani waa la sheegay walaalii ugu horeeyay baa sheegay manfaca uu ummadda Soomaaliyeed u leeyahay waxa kale oo rabaa inaan ku daro dadka Soomaaliyeed iyaga waa loo martii karaa laakiin iyagu cid kale ma martii karaan meel kasta oo ka joogtaan oo ka baxsan Soomaaliyana waa dareemi kartaan dadka carabta ah dadka turkida ah dadka magaranaysa Allahumma salli ala Muhammad mashuudooniyaanka cid kasta oo muslina haddii ay noo timaado Soomaalidu way ixtiraamaysaa waxa la leeyahay war dadka ay magaranaysa martida laga leexdo laakiin Soomaalidu uma dul qaadato dadka kale haddii u tagto Soomaalidu ay u tagto marka walaalayaal meesha waan ku asturanahay عيبها يجوا دم أنا كو أسترن إلهي سبحانه وتعالى أنا كو عبدنا شغلة وقبتنا شغلة مساجد ويكبح سنتها يو تاسية دودر أيها هذين الشغلين كتضباط أرضي أي قرآن كأي كل اكتسبت ذي حدا
sida walaalihii ugu horeeya sheegeen waxa weeye waa hooy buu noo yahay oo qofkii dhibaataysan lagu caawiyaa hadda maanta khudbaddii markaan tukanay walaal Soomaaliyeed oo ka yimid Itaaliya oo nooligii uu ka go'ay hadda Itaaliya u socday ayaa lacag lagu ururiyo lagu sii amba bixiyay marka waa qof kasta oo Soomaaliyeed mid dhibaataysan iyo mid cibaado raba magaalada markuu yimaado waa meesha uu soo magaranaysa beegsada weyn marka walaal waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut war waxaad bixisaan wixii aan idinku arsaaqnay midkiin intayna dhimashada ayna u iman baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay lacagta 200,000 waa laga yaabaa inaad su'aashaas weydiisaan jarmalka dad badan baa jooga see weeye xaalku waan wadnaa shaqadaas laakiin wixii baa kadis nagu ah bisha 12aad baa naloo qabtay waa kadis weyn marka jarmalkana dadku jooga way cusub yihiin laakiin waa dad xoog leh oo wanaagsan oo qof kasta oo u tagto ma garanaysaa sadaqada masaajidka uu muran ka gelin laakiin qof ganacsada ah ama maanta 200,000 gacanta ku hayo ma lihin marka arrintaas waxa kaliftay marka dadka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogaan aano walaal ceebta Soomaalida maanta halkaas ku asturan tahay iyo ceebteenu dibadda loo bixin nagala qayb qaado sideen ceebteenu astur lahayn ilaa lagu hayo inay diintooda islaamka iyo dhaqankooda ku haystaan waa goobta lagu kulmo waa goobta qaaraanka lagu bixiyo waa goobta wadankii hadii la kula dadka laga caawiyo waa goobta aynu ku afurno anigu 4 sano ka badan intaan wadanka ku soo noqday hadda Australia ka soo noqday halkan aan ku afuraa marka masaajidku cibaado kaliya ma hayo wax weyn buu hayaa annaga Soomaalida oo dhan buu isku kaahaya islaamka wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wa inaynu gacanteena u mideynaa masaajidkan inaan gadayno haddaan gadaynana qof Soomaaliya laga gaday maayo waxa laga gadayaa waa nin ajnabi ah qayb professional oo European standard baa lagu gadayaa lacagta waqtigii la qabtay daqad hadaa kala dib dhacdid lacagtaadu way ka dhimatay heshiiskii la galay hadaad ka baxday way dhimatay qof adiga ka lacag badan oo ka taajirsan baana u taagan qaadanaya meeshana wax kala ka dhigaya